gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee Soolje ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Umar Good oo maanta la hadlayay warfiyada kala duwan ee ka howlgala gobolka Awdal ayaa ka hadlay xariga laba wariyo maalmihii ugu dambeeyay muddo 7 cisho ku xiran xabsiga hoose magaalada Boorama labadaasi wariyo loo kala magacaabo Cali Ismaaciil Aare oo ah tafatirihi guud ee telefishinka localka Ray TV iyo Maxamed Cumar Jari oo ka tirsanaa shabakada Boorama News ayaa gudoomiyaha soo ka hadlaya xariga labada wariyo waxa hadaladiisi kamid ahaa muddo 7 waxa ku xiran jeelka hoose ee magaalada Boorama laba wariye oo loo haysto inay dambiye galeen anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolje gaar ahaan gobolada Awdal iyo Salel waxaan leenahay xarigaasi inankaasi xidhay si sifo sharci oo maaragtay waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliland yaalla yani waa baalmarsan waxweeyaan sida xeerku qeexayo in ninka saxafiga isagoo banaanka jooga marka la dacweynayo ee loo haysto loo amseen dambiye galay waa in maxkamadda waaran laga soo jaro kabacdi marka maxkamadda waaran laga soo jaro qofkii uu isna istifaaco maxkamadda saa looga yeero haddii marka dambiga lagu doonayaa uu yahay dambi sax ama se dambi uu galay loo haysto uu yahay waa in maxkamaddii ay xukuntaa saan jeelka loo geeyo laakiinse maaha in saxafiga inta banaanka laga qabto la iska geeyo marka waxaan leenahay saxafiyiintaasi xidhan sharciga ha la hor keeno wixii dambi ay galeen sidoo loogu qaado haddii aan dambi lahayn waa in xorriyadoodii loo soo celiyo si kastaba ahaatee hadalkani maanta ka soo yeedhay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee Soolje ee gobolka Awdal ayaa waxa ku soo beegmaya xilli labadaasi wariye ay maalmihii ugu dambeeyay muddo 7 ay ku xidhayeen xabsiga hoose magaalada Boorama iyagoo ayna wax maxkamada xukumin iyadoo geesta kalena markii la soo xidhiyay wariyaashaasi aan habeeraata wax waarno maxkamada loo soo goosan taasi oo baalmarsan sifada sharciga uu dhigayo xeerka guud ee saxaafadda Soomaaliland Mustafa Caraale magaalada Boorama.